بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم عليه وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan joognaa aniga odayga kala haaba soo raacnay galiyo caalan ka soo noqonay inta balse galiyo caalan dhaxaysan oo weenayna bal ka waran maxaad dareemaysaa dhakalow haddaad wadankaaga joogtid maanta ما شاء الله ما شاء الله iyo dhulka maraysidii والله ودول فرحة وي آدي آد قرح بدن ما شاء الله برواقة النبت قليا ميل والبا وهذا إنه مرة وهذا كيس دين عقل جدود وين تقني دين عاه تقني قليا عالة ما اللي ضحى تقني دين عششة أو بالعلكيا قاس أنت لقوا كمرين الحمد لله وآدي أدلك والنبت وأنا برواقة وحنا دتك إني ودك تشوف دلك الناس قاس ونقضة وبرواقه والنبعه إلى dibadda jooga هاي دتك دبدة شوغا إن شاء الله waxaan rajaynaynaa wallahi nabadgelyo wax la dhaafsan kara ma leh dadkii ka shaqeeyana waxaan leeyahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo aad bay nabadgelyo wadanku tahay meeshaad rabtaad seexanaysaa baadiyahaas galgaduud baadiyadaas oo laga carari jiray maanta dadku waa wada hurdaa cidla talagaduud iyo ka shay ceel helay dadku guryahooda jiifaan wax sidaan ma jiraan hatta saacadkeena waa aragnaa dadku waa sarkaan xoolahana waa isbaayada waa isweydiiyaa inkastoo aan isdhex degin alxamdulillaah rabbil caalamiin ma sha Allah marka sida kale laakiin markaad fiirisid wadankeena iyo caruuraha dibadaha jira iyo saysan u arag iyo say ugu fiicnaan lahayd halkan ku koraan koritaanka halkan hadda waxaanu soo aragnay laba wiil oo midna uu raadinaya oodafo uu goosto ariga ku oodafaysto midna rabti raadinayo soo mar هي كورن dadka marka ay wadankooda ay joogaan iyo shaqadeyrida haystaan iyo dibadda waxa yaala ma sha Allah iyo dibadda khariisnaan loo dhigmay kuwa khariisnimo loo dhigmay Soomaa loo dhigmay alxamdulillah waxa loo dhigayaa waxa weeye quraan iyo loo akhrinay xumaana waa ceeb ka tahay wadanka inteeda badan hadda waxyaabaha iska xun oo iska jiraan laakiin dawlad aantu keenayso hadda magaalada bulshada markaad soo galaysid qash baad la soo gali karin iyo caws wax baxay nimcada ilaahay nasiyo roobka ilaahay nasiyo ilaahay baa mahad marka dhulka ilaahay barwaaqo ka dhiga marka nabadda haddaad fiirisid dhakalow nabadda markaad eegtid sideedaba Soomaaliya oo dhan sida xaaladu tahay nabadda wax ka wanaagsan ma jiraan ما wax wanaagsan ma jiraan nabad markaad heshid baad socon kartaa ama nasan kartaa ama wax qabsan kartaa nabad la'aan waa amnigu waa number 1 markaas kulama muuqato in nabadda inta ka badan laga sii shaqeeyo oo xaggana sacadka iyo deegaanka dadka ah loo tago oo maalmo loo tago oo la soo sheekaysto ama la soo qadeeyo innagana maalmo aanu casino oo la sida hadda waxa aad ugu faraxsanahay arintii sheekhaasha la dhameeyay arin wanaagsan oo guul ka gaaray ilaahay baa mahad alxamdulillah dadka ka shaqeeyay khayr Allah Cabdi Nuurna waliba halkaas ragii ka shaqeeyay buu kamid ahaa Cabdi Xaashi Bootaan Allah u naxariisto ya ragii ka shaqeeyo dhan nooc walba soo xil saaray waliba arintaas ilaahay ka ajasiyo ya ragii kale ka shaqeeyo dhan ka shaqeeyay ma sha Allah waxay noqotay arrin rajah fiican laga qabo khayr badan laga rajaynayo muslimkuna u bogay marka sidoo kale maxaa inoo diidan sacadka laftigiisa oo dad Soomaaliyeed darisna aynu nahay way iimaanaysaa ayadana inaynu raadino wixii dhintay waa dhinteena waxa nool si loo badbaadin lahaa in laga shaqeeyo marka aynu wadamo shisheeye nabad ka raadinayno wadankeena oo wada muslima waynu aalaamayno inaynu nabad ku wada noolaano oo aynu aadaankeena salaadana xor u nahay iyo ilmaheenaba inaan ka shaqeyno taas ragnimadu keenaysa ma sha Allah saasaan ku boorinaa dadka ehelka ah oo dhan meel joogaan dadka ehelka ah waxaan ku boorinaa meel joogaan waxa weeye meel aad Yurub ama America aad joogto salaadaadii aad baryayso oo markaas soo tukanaysa aad leedahay kaali baa ay hayso salaad lagu ogolay kaali lagu ogol yahay waxaan soo xasuustaa maalmaha ka mid ah salaad baan u baahanay dhowr qof baan lahayn marka waxaan niri haddaad soo tukanaysa salaad anu soo kubalin bay ku leeyihiin marka waxaad dhahaysaa I need restroom والله هذه صار ربع الله صار تجلس وسدي يا صلادي يا واحد كاري بس كده تبغى صوت كاتش جابت كبحر هذه مركب واد بوبسينيسا ما المركب waxaan ugu dhacday afar rag cadad bad tushinay rag asxaabta kamid ah oo ila tukanayo Soomaaliya markaa kamid ah marka saad bana ka baxay baan waxaan weydiiyay malaba tukanay bas afartii waa dhameen والله labadii cod kasta waxay raama naqaan waxaan tukanay hadda waxaad garanaysaa qof salaadiisii aan loo ogolayn oo afurkii iyo salaadii iyo kulli waa soo kaajiya ku baxaya wax ka liitaa ma jiro ilaahayna quraankiisa wuxuu leeyahay yaa cibaadiy alladina aamanu inna ardi waasi'atun fa iyaya fa'budun kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un walladina aamanu wa'amilus salihati lanubawwi'annahum min al-jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin الذين صبروا وعارضهم يتوكلوا صبر بالنا كربا يتلاصى ربي ودنكينا usoo laabta oo wadankeena aynu nabadna ka wada shaqeysano wax soo saarka iyo badda iyo bariga ba aynu macdan ka soo saarno kalluunka aynu soo saarno wala aan wada shaqeyno cilmiga qabyaaladda qolka aynu iska dayno
sidoo kale dadka hadda garoowe dowladda puntland arrimaheeda isku haysta waxaan leenahay annagu nabad baan rabnaa buuq iyo dagaal ma rabno dowladnimaan rabnaa iyo walaalnimada wax ku dhammaysataan kursiga aad isku haysaan isku qabanaysaan intaasoo masaakiin oo soomaaliyeed baa idin hoos taalla aakhirana waa laidin weydiinayaa ogaada marka anigu waxaan qabaa xilka dhibaatadiisa qofkii caqli wuu ka calaraa kuma ordo marka laakiin haddii aad xil helaysaan si degan ku helaysaan annagu idinkuma haysanno laakiin colaadaha noo soo jeedinina oo dagaal sokoyaa noo soo jeedinina oo isdilha noo soo jeedinina oo carruurta inaan dib u qaxno oo dabcan u cararo badda ku dhintaan dadka ilaahay uga baqa dadka Soomaaliyeed oo garoowe iyo gaalkacyo iyo boosaaso dalba ku nool uga baqa ilaahay uga baqa subxaanahu wa ta'aala oo waxa weeyaan kursi ha ku iibsanina oo dagaal sokoyaa noo soo jeedinina saasaan markhaati ka ahaw saasaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan dadkaas ku waaninayna oo aan ku aabahinayna ilaahay ka baqa dadkaas ilaahay uga baqa dadkaas iyo dalka ilaahay uga baqa dhibkii hore oo gaaray Soomaali dhibka laha ugu sii daranina idinkana waxa ilaahay idin weydiinaa nabiyarka idinku soo celiyo nabadna ilaahay si degan xal idinku dhameeyo dadka ismada waxaan ka codsanaynaa inay nabad ku dhameeyaan meesha waxa ka jira oo ay sida wanaagsan ku dhameeyaan oo waxa weeye sida ugu fiican oo kursiga qofka ugu fiican hataa inay yiraahdaan hebel ha loo dhiibo si kastaba ha noqotay in ismadu ay wanaag ka shaqeeyaan waxa weeye annaga kitaab ilaahay noo soo diray muslim baynu nahay muslimka aynu nahay kitaabka ilaahay aynu aamino waxa weeye isagaana ku filan qofka wanaagsan alla yaqaana talada ha loo dhiibo وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.